الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله ولا ليال السلام عليكم ورحمة الله وحان جعلهاي مانتا إن آن كهدلو موضوع كسابسا أرنتا آدكا بريهان لوغا هذا الهيو warbaahinta ummadda Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan oo ku saabsan Cabdulkariim Sheekh Muuse oo loo yaqaano qalbi dhagax diibitaanka la sheegayo in loo dhiibay wadanka Soomaaliya la jaarka ee Ethiopia arintaas baan jeclahay inaan ka idhaahdo kelmad ku saabsan maxaa uu ka qabaa fiqhiga islaamka dood aad u fara badan baa ka dhacday oo dhex martay dadweyne aad u fara badan dadkaas oo aad u kala duwan dadkaas oo ah dadka siyaasiyiinta ah culamaa u diinka ducaadda islaamka iyo kuwa kaleeto ee aadka ugu dhuun daloola arrimaha Soomaaliya gaar ahaan aqoon-yahanka sida Cabdi Ismaaciil Samatar professorka iyo kuwa kaleeto aad u fara badan arintaas xoog bayna uga hadleen waxayna ku kala qaateen mawaaqif aad u fara badan inkastoo dadka intooda ugu badan ay yihiin dad ka soo horjeeda in muwaadinka Soomaaliyeed ee la yiraahdo Cabdulkariim Sheekh Muuse qalbi dhagax in dal kale oo shisheeye amba wadan kale oo col yihiin in loo dhiibo inaynan ahayn dhinaca diinta iyo dhaqanka iyo dhinaca marka laga eego siyaasadaba haddaba walaalayaal arintaas baan jeclahay inaan dhowr kelmadood aan ka dhaho caawa inta aan oran kelmadda marka hore waxaan jeclahay inaan ku horeysiyo laba arrimood oo aan u arkayo inta aan u gudbin arintan aan u soo fadhiistay caawa ama maanta inta aan ka hadal inaan wax ka idhaahdo arinta koowaad waxa weeye dad fara badan oo walaalahay ah oo xanuunsan oo ila soo hadlay oo qaarkood ila degan yihiin magaaladan Ottawa ee aan deganahay iyo qaar kale oo degan dalkii gudihiisii iyo meelo kaleba oo aad u xanuunsan inaan duco u marno oo faatixada u akhrino ayaan jeclahay dadkaas oo kala ah dadkan soo socda horta waxaan ognahay dadka reer Jabuuti og yihiin gaar ahaan inuu buko halgamaagii weynaa Axmed Yuusuf madaxweynaha xisbiga ARD isla markaasina ah ilaa imika hogaamiyaha xulafada iyo santa wadaadkaas muwaadinkaas siyaasigaas halgamaaga weyn ayaa xanuunsan nin sheekha oo daaciyana uu yahay hadalkiisa iyo dikriga aad afkiisa ugu badan yahay marka waxaan jeclaan lahaa inaan u ducayno ilaahay inuu shaafiyo wuxuu ku jiraa dhakhtar ku yaala dalka Faransiiska ilaahay caafiyo subxaanahu wa tacaala waxaan kale oo halkan uga ducaynaynaa walaasheen Zuhur Aadan Geedi oo degan magaaladan Ottawa oo iyaduna xanuun aad u hayo oo ilaahay u baryayno subxaanahu wa tacaala inuu caafiyo shifaa kaamila uu siiyo ربنا جل وعلا وكدغو كو إلهي تبارك وتعالى هبينك دعادينا ونقاقبلو وصابحو ونن عافيو وحكاليتون ودعينينا ولاشين فاطمة منصور وأهقبت فنانة ومسلمة ورير جيبوتيا ويضنا حنوصا تذكر رير جيبوتينا ملكستي جوغان أو سركعين aan jecel lahayn in sida loogu sarakaco waxa loo ururiyo la isgarab taago ducana loogu daro gabadhaas fiican ilaahayna tabaaraka wa tacaala caafimaad kaamila oo taam ah siiyo waxa kale oo u ducaynaynaa walaalkeen Fuaad Axmed oo isaguna fanaana aad u xanuunsan oo marka aan ka arkay sawiradiisa meelaha la soo dhigay argagax badan igu abuurtay marka insha Allah taala isagana waxaan u baryeynaa ilaahay inuu caafiyo shaafiyo caafimaad sariica uu siiyo subxaanahu wa tacaala waxaan kaleeto iyadana u baryeynaa walaasheen Faadimo Axmed Dhimbiil
ولله وقبرينه تبارك وتعالى إنه عافيه وعافيمات كاملة وسيو وقبر قرن يدنا وقيمة بدن وقالية marka intaas oo dhan waxaan leenahay waxaan halkan usoo fadhiistay intaan hadalka gelin inaan duco u marino oon orano allahumma rabbi nnaas idhab ilbaas anta waxdaka ashaafi laa shifaa ilaa shifaa'ak shifaa'an laa yuqaadiru saqaban bismi illaahi aladii laa yaduru maca ismihi shay'un fi lardi walaa fi lsamaa wahuwa asamiicu alcaliim nacuudu bikalimaati illahi taamaati min shari maa khalaq allahnu baryaynaa tabaaraka wa tacaala waxaan kale arrinta labaad waxa weeye arrinta ka dhacaysa waddanka boor ma dhahdo Myanmar dadka bini aadanka ah muwaadiniinta ah muslimiinta ah tol haysan wax isgarab taaga haysan la ogaaday inay been tahay wixii la oran jiray xuquuq bini aadan nin European ah haddii sida loo gowrici lahaa amba nin reer galbeeda amba nin kale oo waddanada qiimiga badan ee la qiimeeyo u dhashay adduunku soo joogsan lahaa mana fariisteen laakiin maanta waxaad arkaysaa dad dhan oo inta la gowraco badda lagu darayo wabiyada lagu daadinayo hilibkooga la googoynayo wax hadlayana uuna jirin muslim iyo gaal intuba farahay ka qaadeen dadka ayagu waxay inooga baahan yihiin saddex arrimood oo marka koowaad isgarab taag material iyo moral wadana fara badan waxaa laga bilaabay in wax loo ururiyo in laga qayb galo dadka in wax loo ururiyo oo materialkaas la ururinayo laga qayb galo dhar wixii la hayo oo dhan waxay nooga baahan yihiin moral ma inaan isgarab taagno oon aan noqono dadkaas qadiyadooda xambaara oo dhammaan aan wada dhigano meelaha aan wala leenahay baashashkeena iyo meelaha aan ku leenahay maaragtay internetka inaan baashashkeena soo wada dhigano taswiirahooga oon qorano ha laga daayo argagixisinimada lagu hayo ummadaas arrinta labaad ay nooga baahan tahay waxa weeye waddanada waxaa lagu ballansan yahay jumcaha soo socda inuu ka dhaco mudaharaad adduunyada in mudaharaadada waddanada lagu ogol yahay ee xorriyad iyo cadaalad ay ka jiraan in laga qayb galo sida arrintaas qadiyadda ummadaas shaaca looga qaado salaada jumca wadano badan oo Yurub ku yaala wadano badan oo North America ku yaala wadano badan oo waddanada islaamka ah waxaa lagu ballansan yahay salaada jumcaha soo socda in laga soo dareero oo loo banaabaxo oo hal isgarab taago arrinta saddexaadi waxay nooga baahan yihiin dadkaasi inaan u ducayno xataa ducadii xaramka ee ramadaankii dhaweyta nasiib uma helin lianna ducadii baa noqotay siyaasi marka insha allahu tacaala oo dad muslimiin ah oo in loo duceeyo dhacdo ilaahu u gargaar wax u gargaara way waayeene subxaanahu wa tacaala nashku ilayka dacfa quwatina wa qilata xiilatina wa hawaanina cala annaas ilaahay inaan u sheegno inaan maanta itaalyarnahay inaan ka ashkatoonayno dadkoo dhanna isku kaaya tageen wax noo naxariisanayana uu yaryahay tabaaraka wa tacaala intaas waxaan kaga baxay labada arrimood ee jeclaa inaan soo hormariyo walaalayaal arrintan cabdilkariim dood fara badan iyo abuurtay waxaan jeclahay inta aan doodaa gelin inaan tilmaamo horta dowladda Soomaaliya ee aan haysano ee imika dib u curaraysa ee uu madaxa ka yahay Farmaajo ee uu khayrana u yahay ra'iisul wasaaraha dowladatan waa dowlad cusub oo curatay maaha dowlad abuurmaysa waa power cusub oo curtay kadibna dad fara badan ay la sara kaceen oo ay isgarab taageen oo anigu ka mid ahaa waxaanan ka dhex aragnay saddex arrimood baa nooga soo uray dowladdan amba nidaamkan cusub ee bilaabmay arrinta koowaad ee nooga soo urtay waxay ahayd soomaalinimo nooga soo urtay markaa sidaa baan isu garab taagnay arrinta labaad waxay ahayd sharaftii ummadda Soomaaliyeed ay weyday ee bariga Afrika ay ku lahayd dunidana ku lahayd baa hadallada raggan ka soo uray markaa baan isgarab taagnay arrinta saddexaad ee nooga soo uray amba aan ka dareenay wuxuu ahaa ka duwanaansho ay ka duwan yihiin kuwii hore oo ay leeyihiin dowladaha aan jaarka nahay iyo caalamka waxaan kula dhaqmaynaa siyaasad ka duwan siyaasadihii hore ahaa kuwii hore waxaa lagu yaqaanay tabciya inay iska raacaan waddanada kale annakase waxaana lagu arki doonaa wax la yidhaahdo istiqlaaliya inaan xor ka nahay qaraarka dibadda
haddaba intaas bay ahayd wixii keenay in la yidhaahdo loo maaragtay kaco oo laisku garab joogo. haddaba waxa weeyaan walaalayaal, culummadu markay ka hadlayaan mawduucan, markay aqoonyahanku ka hadlayaan mawduucan, iyo markay siyaasiyiintu ka hadlayaan mawduucan, sida looga hadlayo waxbaan ka dhaxayaa, sida in la yeelo ahaydna waxbaan ka dhaxayaa. waxaan kaloo wax ka dhahayaa maxaa ina haystaa haddaan nahay ummad Soomaaliyeedna iyana waxbaan ka dhahayaa. marka hore walaalayaal, waxaan jeclahay in aan tilmaamo arrintan soo socota oo ah, horta waxaan ognahay walaalayaal, waxa la yidhaahdo dowladii waa waxa ugu muhiimsan ee bini aadamku ay haystaan. haddaad maqashid dowlad, waxay dhahdaan culummada bulshadu ee siyaasaddu, afdal ibdaac bini aadamku uu gaadho, waxa uu bini aadam sameeyey ugu qurux badan waa dowlad weeyaan. dowladdu waa qurux. dowladdu intay noqon system iyo nidaam waa fikrad weeyaan. dowladdu shaqay leedahay. dowladdu waxay leedahay wax bay loo diray, waxaabay qabataa. haddii waxaasi jirin dowladdu ma jirto. waxaan jeclahay inaan indi tuso 4 arrimood oo dowladda laga yidhi. ninka ugu horeeya dowladda ka hadlay wax ka yidhi waxaa la yidhaahdaa ileen culumaa ka hadlayse sheekha dhada imaam alxaramayn aljuwayni raximahullah kitaab buu qoray uu u bixiyey qiyaasu lumam fi iltiyaasi dulam. sheekhan wuxuu qoray kitaab uu u bixiyey ummadaha sidee loogu gurmadaa markuu dulmigu bato. wadaadkan kitaabka markuu qorayey wuxuu ahaa markay dowladda islaamku adduunka xukumaysay, markay xadaaradda islaamku nolosha maamuleysay, civilisation muslim civilizationku adduunka maamulayay, waxay ahayd markii dunida muslimka looga dambeeyey. laakiinse dhibaatooyin fara badan ay muslimiinta ku dhaceen oo dowladihii dambe salaajiqada iyo ay noolaayeen. ninkaas markuu buuga qorayay wuxuu ka fikiray 3 arrimood isagoo kitaabka ka soo qaadanaya sunnaha nebiga calayhi salaam. arrinta koowaad wuxuu ka fikiray horta dowladii maxay tahay, islaamka marka lagu eego inuu wax ka qoro. 2 wuxuu ka fikiray haddii la waayo dowladda maxaa la yeelay, haddii dowlad la-aan dhacdo sida Soomaaliya marka dhacday, alfaraaq asiyaasi maxaa la yeelay fiqi ahaan. wuxuu ahaa waa nin ku takhasusay cilmiga mustaqbalka futurologiga. arrin saddexaad wuxuu yihi haddii la waayo indheergarad, culummo haddii la waayo, indheergarad haddii la waayo maxaa la yeelay. 3 arrimood buu buuggan ka qoray. waa 3 arrimood oo maanta ummadda Soomaalidu ay u baahan tahay. waxaan jeclaan lahaa culummada islaamku inay kitaabka akhriyaan, kadibna ay fatishaan, ay maaragtay arrimihiisa faaleeyaan, dhaadhiciyaan, wax badan oo historikana ay ka saaraan. wixii laakiin culus oo xataa reer galbeedku ay ka faa'iidaysteen oo Jean-Jacques Rousseau iyo markay qoriyeen buugaantooda waa kutubtay ku laabmeen in laga soo qaato oo laga soo dambeysho muhiim bay tahay. ninkaas wuxuu ka qoray dowladii maxay tahay. dowladda marka islaamka laga hadlayo al-imaama la dhahdaa. al-imaama dowladii maxay tahay waa kelmad cajiiba. waa definitionka uu siiyey. wuxuu yidhi dowladdu waxa weeyaan waa hoggaan guud. dowladdu waa ri'aasa caama, ri'aasa taama, waa dowladnimo buuxda, maaha maamul naaqusa. waxbaan uga jeedaa meesha, waan eegi doonaa. waa maamul buuxa, waa zicaama caama iyo hoggaan guud. dowladdu waa maamul sare oo buuxa, waana zicaamad. zicaamadu waa maxay? waa hogaamiye maaragtay dheeli tiran kow oo arrimaha dadka u gaarka ah iyo caamka aba gasha. qoyskay gashaa, bulshaday gashaa, dowladday gashaa, intaba farahay la gashaa dowladdu. wuxuu yihi waxayna ka shaqaysaa diinta iyo adduunyada dadka inay horumar gaadhsiiso. waxa ay mutadaminkeegu yahay dowladda gunteedu wuxuu yahay buu ihi ilaalinta nabadda iyo jirista bulshada, inay bulshada sida xoolaha loo jiro oo la ilaaliyo, waxay cunto cabno waxay u baahnaayeen, iyo in la ilaaliyo oo dadka loogu yeedho fikirka ay dowladdu aaminsan tahay. dowladdu fikrad bay leedahay. dowladda Mareykanku fikrad bay leedahay, dowladda Faransiisku fikrad bay leedahay, dowladda Soomaaliya fikrad bay leedahay. in fikirka dadka loogu yeedho oo xujo dadka loo argiman iyo cilmi loogu yeedho, lagagana celiyo dhibaatada dowladda wixii faraha la soo galaya xoog iyo seef. wuxuu yihi wakafu lxanaf, janafna waa lagu qoray kutubta qaarkood, in laga ilaaliyo dowladdu inay leexato, leexashada in laga soo cesho oona dowladdu shicibka ku xadgudbin.
shicibkuna dowladda ku xadgudbin oo cadaaladii la ilaaliyo wuxuu yidhi walxayf dulmigana in bulshada laga ilaaliyo iyo dowladdu ka shaqaysaa inay dadka madluumiinta u soo rido xaqooga walintisaafu lilmadluumiin min aldaalimiin oo daalimiinta laga soo rido waa muhiim waxa uu sheegay dadkaasi واستيفاء الحقيقة الحقوق حقوق أوردنا إن أمضى لو سوريدو أو لو سوريدو دتك أمضى بوغيا كدعية إلا سوريدو وحول مركا وداد كاس أم بأقويها كوين الجويل لادو دولة دواتا وحيالا ضياب كلا نكاس إليا بي وحويا دولة باسمه يقول وعريس وهنا سوقات المركي النبي محمد أوردنتي يدور صلاة الرسي صدح كلمات بو استعمالي او ما تصورت كفايسانا وحوري واعطي المدخل والمخرج مركو نبي دنتي اعطي لا ما حكرتها كلمه اعطي لا واف عربي هذا وضع العلوسوي وحكرتها دولدو وحا لوايه ميل لاغا غلو iyo meel laga baxo dadkii madowba ku dhacay اعطي لا si dowlad loo dhisto crisis ba dhacay اعطي لا المدخل والمخرج كلمه دعوري واعطاس المسلك والمدرك والمنهج وحا لوايو مجد قلي ماشي لمري لها الدولة اللي مري لها مدرك وحور إلا هلا الدولة دي بالواي يا نوب بدي النبي ولا سنة قرواي وحور منهج كنا وحوق على مجدي وقالت طبعا أنا زاد هذا وحوري دولة ده وحاد السي أهل الحل والعقد ضد كي برلمان كها إياه دسمو للدولة ودسموكم حولي هو المستند المعتقد والمعول المعتضد واحد دولة لغو دسوحوها إزقارشة يأفبوحة ومضوا أي صلاة دستي حتى ما واحد ويان ولا غيان دولة تساس عليه نكا الأورنجري إمام الحرمين أريتاس وحا لمدة وسأم عليه ماتا فقيه وين فرانسيسكا قانونيكا دستور هو تخصصي اللي نحضو كاخ دي مالبار كذا وأنا فرنسيسا نيكاس بقولي والدولة دي وحوي وكوح ميل فرديدو أو اسكو أفقرتي إن السماستان سيستم إلاليا أو إلاليا إن وحي دونيا وهيرجريو وحي وشيء وكوب الله وداد كاسي أيو إنه سوكوبي نيكاس بطرس غالي يا خير عيسى لبدان بوجي كقرن سياسة وحي لهذين وصدعوا دولة دي واتابع لهذين حتى بوحوي ولا ليال marka aan leeyahay dawladdu sida uu Imam Xarameyn waa ri'aasa taama waa dawlad taama waa dawlad laga wada dambeeyo kelmadaas waa muhiim dadka Soomaalidu dawladdan imika uu madax ka yahay farmaajo ri'aasa taama ma haysata ri'aasa taama ma tahay madax sare oo taam ah oo ka talisa xuduudda Soomaaliya meesha ugu darafaysa ilaa meesha kale ugu darafaysa oo gacanta ku wada haysa والأمر كيجا اللي جوه سبحين أو اللي وده هوس جوجو بطحي أنت لبعض زعامة عامة زعامة ومحي وهجان جود أو نمان دولة يرير أردن أي صوهوس منها مثلا فيدراليزم يجا واحد عضو وضع كندا وفيدراليزم مثلا رئيس الوزراء وضع كان أمر كيس الدولة هوس أردني واحد دبت يجودو الساعة كترنيا يلعق واحد مهم كنا ورئاسة عامة ليه وحنا ليه هي زعامة عامة هي رئاسة تامة أيولية لكن تام ما كجيتها صوماليا وسؤال إن أن كذبت لنا دولته وحي لها هي وظيفة لا يقان ولا ريان وظائف أصلية هي وظائف فرعية لها فوكسيون دولته شقة قبتها شقة جود هي شقة قارة صدق شقة لا قارنا شنبر هذا هي شقة جودة دولته شقة جودة قبتها وحوين وأمان إنه قف والبأقل كيسة كنا بذكره لبا وإن الدلك الدفاع ذو حدود هذا سلو شيء جويني لبا ضابو شيء صدح وإنه قف كستيب عدالتها له تا واحد هذا ووظائف صدح وحنا لو قدر إمك لبا إن علاقات كدبد يضم مع مشو وأدونك وحي حل اللي يضع لو ندافين لو جنا إيمان أريته قدام بيسا العكس ميتا إلى أنت العكتا حولها وضك العكتا لاستعمال يدك عنتا كوحي نيسا أوكي رحمه الله إمام غزالي وحوري والدين إيه الدولة دي ومطانو معناها الدولة بلا فكرة دونك مجلس إسلامكم ما داموا فكرة دي هاي دينة إسلام كانت دولة دو هاي فكرة ودنا إسلام كونا ساسي أبديين ودنا الرجال بيت كعلمانيات بوا فكرة مركز الدين إيه السلطان
ومتانو دولة بلا فكرة ما جرت دوكا دولة واحد لسه سميسته أمها فكرة بيكون إيمانها أوكي معلومة بركة وداد كاسي دينتو وأساس دولة دونا وحارس وإلالية وحي أن أساس لهن ودمي وحي أن لهن وح إلالينا وهلابي ولومي وباديوبي إذن وحويان الريتاس وحا أن أوجد وهذا الكعين كاسا أن أوجد راضي وحويان إخواني في الله إن الله بقى الريموت أن إمك التلمامو يرجع لها ودن كينا صوماليا dhibaato weyn baa in haysato walaalayaal dhibaatada ugu weyn ee haysataay waxa weeyaan waa afar arinta koobaad waa maxay waa dhibaato la dhado dawladda waxa hor fadhida fikrad qabiil Soomaaliya waxa isku haysta laba fikradood fikrad dawladeed iyo fikrad reereed dadku marna dawlad bay doonayaan marna reer bay doonayaan labada keeba kala adkaanaya waa labadan in la heshiisiyo waa muhiim in la baabiyo marka dawlad laga fikirayo reernimo waa muhiim weeyaan marka reerku maaha Soomaaliya qabiilku maaha Soomaaliya marka la joogo qabiilku maaha system social say dadkeen uga hadlaan Soomaaliya qabiilku waa fikrad annaku qabiilku fikrad buu inoo yahay isagaan ku kulanaa isagaan isku imanaa isagaan isku caroonaa isagaan ku heshiinaa dawladuna waa fikrad kale labadan fikradood meel ma wada fadhin karaan waa inaan mid doorano haddaan rabno inay dawlad abuurato arinta labaad Soomaaliya hor u yurata waxa weeyaan ee dawladnimada duminaysa waxa weeyaan waa arinta la yiraahdo federalism and lobisland qabiil walba hadduu samaysto dawlad uu federaal u bixiyay uu leeyahay anigu waxaan ahay dawlad oo xuduud uu samaysto waxa weeyaan Soomaaliya waa qabiil quraatay xuduud ma kala leh adu marka fikradda aad sameynaysid fikraddaas in dib loo dhuuxo oo aad loo akhriyo war federalismiga ma saxba Soomaaliya inay ka jirto maya ma u bislaanay maya federalismigu muxuu yahay muxuu xuduudiisa oo ka bilaabmata la ku dhamaata waa federalismi ku haya maarata garabka qabiil dawladnimo ta kama socon karayso arrinta saddexaad waxa Soomaaliya waxa jira faragelin dibadeed oo baabi'isay dawladnimadii Soomaaliya siyaada ma leh dawladdu maamul sare oo wadanka oo dhan dadku haystaan ma jiro waxa dhex fadhiyo 10,000 oo ciidan dibadda ka yimid oo leeyahay heshiis bay ku yimaadeen heshiiska noocaas waa laga hadlaa labo waxa weeyaan Soomaaliya waxa isku dhex dariraya waxa dhado nufuud khariji Soomaaliya bariga waxa isku haystay wadanadan bariga Afrika degan ee aan jaarka nahay yaa isku haystay maanta waxa isku haysta Imaaraadkii baa yimiday Sacuudigii baa yimiday Masar buu yimiday imika arinta Cabdulkariim waa kaali doonaa goorma dhacday markuu madaxweyne Farmaajo uu booqasho ku tagay wadanka Masar oo heshiis ula soo galay dawladda Masar heshiiska kadib markuu soo laamay arintan baa dhacday arintan maxay ka jawaabaysaa waa dagaalka maaragtay niilka ee ka dhaxeeya Masar iyo Ethiopia marka waxa uu nahay raq dagaalo ka socda waxa isku dhex diraya wadana kale Turkiga iyo Qatar waxa isku diraya maaragtay Imaaraadka iyo Sacuudiga meeshana waxa weeyaan adu waa iska fadhidaay waa la soo qaadul haystaa waxa isku ka haysta nufuud khariji culus baa isku ka haysta marka maxaa la isku ka haystaana aqoonyahankii ka warramay wuxuu ku mashquulsan yahay qabiilada la kala fadhiyaan fikir qabiiliya la fadhiyaan arinta shanaad afraad ee in haysato waxa weeyaan dawladnimada Soomaaliya waxa haysta waxa weeyaan ad-dawla al-amiqa rag baa jira intii faraaqu jiray abuurmay oo afar qola afarta qola sidii looga bixi lahaa waa in xal la helo afarta qola waa bay'u mushtar la cagaystay oo ku la cagaystay faraaqi dawladda oo aan doonin inay bixiyaan cashuur dawladnimo ma rabaan waxaa jira kuwa kaleeto oo maamulo samaystay oo aan aqbalayn inay maamulka weyn ee abuurmayo hoos yimaadiin waa dawla amiiqa arinta saddexaad ee meesha jirtay waxa weeyaan dad baa jira wadaada waranley oo ka faa'iideystay maqnaashaha dawladda oo jaamacada samaystay iskool la samaystay dhakhtar la samaystay rabin inay dawladdu imato ay waxa gacanta ku dhigto aan rabin baa jira arinta afraad ee ugu dambaysa waxayaan waxaas oo dhan dibadda iyo laga kontroolaa intooda badan marka arrimahaas oo camiiq ah nin kasta oo Soomaaliya yimaado oo madaxa oo noqdo madaxweyne ama wasaare ka noqdo waa la fashilinayaa marka arintaas maxay nooga baahan tahay marka walaalayaal inaan saddex arrimood ka digtoonaano nooga baahan tahay kow waa inaan ka digtoonaano haddaan nahay aqoonyahan culumo waxa la dhado al-qira'a al-'aatifiya inaan markaan wax akhrinayno inaan laablakac ku akhrino inaan wax u iska sheegno qofkan doona nacayno qofkan doona amaano hadi waxa la qira'a 'aatifiya waxa loo baahay qira'a istiraatiijiya
inaad yeelatid kart khariida fikriya ood wax walba adoo arkaya aad akhridid weeyaan arrinta labaad in la iska ilaaliyo waxaa alqiraa'a sariica inaad markay wax dhacaanba ka jawaabtid marka khaasatan markaa culumad nahay ducaad nahay waa inaad waqti sugtid markaad waqti sugtid ka hadal waa muhiim taasina alqiraa'a sariica waa ma fiicno arrinta saddexaad waxa weeyaan almalal dadkeenu way daalaan nin yahuudiya oo khabiira oo ku takhasusay culumta dadka carabta iyo afrika iyo muslimiinta wuxuu yidhi hadihi shucuub maluula waa shucuub daasha ma sabri karaan waqti baa la siiyaa wax walba iloobaan marka annaka shucuub maluula aan iska ilaalina arrintaasna arrinta ugu dambaysa inaan iska ilaalina waxa weeyaan inaan kala saarno shakhsiga iyo dowladda markaan shakhsiga la dagaalamayno inaan dowladda ridin sidii inaga dhacday waa sidaan xitaa jabuuti idhahdo haddaan mucaarad ku nahay ismaaciil cumar dowladda jabuuti mucaarad kuma nihin jiritaankeenna maaha waxaan mucaarad ku nahay qof weeyaan qofka mucaarad ku afarmaajo inuuna ku darin dowladda waa inay dowladdu jirto qofkan aad mucaarad ku hatid mucaaradnimadu waa inay noqoto 3 darajadood darajad aad mucaarad ku tahay maaragtay wax uu ku khaldamay oo taktiig ah taktiig waa maxay sidii la rabay ma yeelin labo waa inaad mucaarad ku tahay arrin ka sarreysa oo ah waxaad mucaarad ku tahay habka uu dalka u maamulayo iyaduna taaba ka sarreysa maya saddex waxaad ka horjeedaaba fikirkiisaba intaba adoo ka horjeeda waa inaad sheegtid waxaad ugu horjeedid waxa aad badil haysidna ummadda usoo bandhigtid markaa taasi waa muhiim waa waxyaalada inaan iska ilaalinaa okay waxaan u imanaynaa arrintii ugu dambaysay oo ah walaalayaal inaan arrintan ninkan aan kelmad ka idhaahdo horta dad fara badan waxay daliishadeen nebigu sulxul xudaybiya calayhi salaatu wasalaam wuxuu dhiibay dad muslimiina oo soo hijrooday markuu heshiiska la galay quraysh markaa dowladdan heshiis bay gashay waa inay dhiibto cabdikariim horta su-aal baan isweydiinaa cabdikariim ma qof waddan kale u dhashayba mise waa qof soomaaliya oo reer soomaaliya markaan ka dhaqaaqno dastuurka jamhuuriyadda soomaaliya u yaala oo aan weli laga bedelin maadada jinsiyadda mooj in la bedelo aan uma ogi waxa weeyaan cabdikariim waa muwaatin soomaali ah waa kow marka dastuurka la raaco labo ninkan cabdilkariim sheekh muuse marka labaad muxuu yahay waa nin usoo adeegay dowladda soomaaliya okay sheekh uu usoo dowladda soomaaliya uu usoo dhaawacmay uu usoo dhintay uu usoo galay dagaalkii 77 wixii ka dambeeyay arrinta saddexaad cabdilkariim waa nin leh fikrad ka soo horjeeda dowlad jaarka ah okay dowlad jaarka ah oo Ethiopia oo Soomaaliya la jaara oo Soomaaliya iyo Ethiopia heshiis ay yihiin ayuu fikrad ka qabaa marka ninkaas sidaas ah in la dhiibo ma saxba mise waa qarad anagoo ka dhaqaaqayna fiqiga miisaanka dhacdo dowlad horta marka lagu leeyahay dowladdu waxay ilaalisaa qofka bini aadanka waa asaaska dowladda nabigu wuxuu yiri salaam dad baa leh dowlad iyo qaran baa la kala yahay qof iyo qaran ma aha waxaas waa been weey waxaas fikra islaamiga kuma jirto fikriga mucaasirka kuma jirto qaranku waa qofka ولذلك النبي يقول عليه السلام مكة وحاتها كعبده وحكا فضل بدل مجره لكن قفك مسلم كا قيمة بدل بني آدمكو استاك قيمة بدل حرمك مساجدك يوحى ربا استاك راد وحان دهينا ولا ريال نينكاس ديبيتان كيسو وحوها مركز 11 لغا دقاقو خيرك بني آدمك لغا دقاقو حقوق الإنسان لغا دقاقو مواطن نمديس لغا دقاقو فكرته وكقبو ودك جارك اللو ديبه انتو بوحوها بصح انهي iyadoo lagu darayo heshiis in la isku dhiibo dadka labada wadan dambi ka kala galana ma jiro oo Soomaaliya oo la galay oo baarlama saxay ilaa imka lama hayo rag siyaasiyiin oo ka shaqeysan karaan qaar waxaan ka maqlayay nin gobol xukuma u saxay dawladda in loo dhiibi karo gobol maaha waxan waa inuu baarlamanka dhexe ee Soomaaliya uu isku waafaqo heshiis oranaya heshiiska aan la galay wadanadaas waa la dhiibi karaa qofka halis ku ah ammaanka wadanka kale to haduu naga soo codsado kadib marka la eego qofkaasi muu yahay qof wadanka u dhashay intaaba marka la eego waa qalad arrin kale oo muhiim ah jirto oo ah in arrintan yaa sameeyay arrintan waxa ka shaqeeyay dad saddex arrimood u jeeda istiraatiijiye ka tahay kow marka aan ku eegno cilmiga istiraatiijiyada dad fashilinaya madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha maxay u fashilinayaan waa madaxweynihii iyo ra'iisul wasaarihii ugu horeysay ee isku fikra ee wada shaqeynaya ee ummadiina kasbaday marka waa in la fashiliyo labo waxa fashilinaya arrintan oo ka shaqeynaya wax weeye dadka aan rabin Soomaaliya inay lugaha dabada saarto jidka dariiqa saxda waa labo arrinta saddexaad waxa fashilinaya
quwado shisheeye oo dibadda jooga oo diidan Soomaaliya inay degto wayaan idan arinta waxa ka shaqeeya kuwa waxaana loogu talagalay in lagu fashiliyo madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha mana aynan ahayn in la dhiibo oo ninka loo dhiibo wadanka ay sayaan anigu Ethiopia iyo Djibouti waa laba wadan oo saaxiiba oo walaala laakiin waxaan ka hadlayaa fikrad mujarrad bini aadanimo ka hadlaya anigu waxaan ahay qof bini aadan oo diidan islaama Soomaali ah oo goleyn in insaan dulmi loogu dhiibo wadan kale oo qofkaas uu hadhow toole nabad uu ku helin markaas qofka waxa waajib ah maxkamad Soomaaliya ku taal in la taago arrimaha la ogaado la baaro siyaalo fara badan ee dowladda Soomaaliya ay leedahay bajira sidaas daraadeed waxaan leenahay waxa weeye qalad buu ahaa istaraatiijiya laakiin qaladka in lagu sixin qalad kale qalad baa dhacay waa qalad culus waa qalad u baahan in la saxo sixitaankiisuna u baahan yahay in lagu saxo inaanan albaabada laga xidhan dadka inaanan la isdaga tirin in dadka loo jawaabin waa in albaabada la furo dadka la sheekaysto gaar ahaan ehelkii iyo qaraabadii uu ninkaasi ka dhashay waxaana wanaagsan in arintaas lagu xalliyo xal aan ahayn in la yiraahdo waa in la duumiyo xukuumadan iyo systemkan imika jira si ay meesha uu faraaq u dhaco oo aanan gaarin wixii hore laga soo gudbay aan lagu soo noqon waxa weeyaan meel uu ka soo dhaqaaqay dalka Soomaaliya iyo in dib loogu laamo la doonaya taana waa in la iska ilaaliyo marka in aan qalad lagu sixin waxaan leenahay insha Allah ta'ala halla koro halla kobco maskaxdeena haweynaato han ogaano ahmiyadda ay leedahay jiritaanka dowladda Soomaaliya Soomaalinimadu istaraatiijiyadda ay leedahay waxa weeyaan nin la yiraahdo Xasan Maki oo professorka jaamacad Afriqiga Suudaan ku taala wuxuu dhahdaa 30 ilaa iyo 40 sano gudaheeda dadka Soomaalidu iyaga ka talin doona bariga Afrika markuu bariga Afrika leeyahay wuxuu jeedaa waa min marka laga soo bilaabo Tanzania ilaa iyo Suudaan ilaa iyo marka laga gaarayo Djibouti xuduudaheega waxaas oo dhan Eritrea intaas oo dhan ay ka talin doonaan say uga talin doonaan saddex arrimood bay leeyihiin buu dhahaa waa shacbi nashiita oo active ah waa shacbi aqliyan bisil waa shacbi dumuux leh oo halka hore u socda laakiin laba shay ba inaga maqan waxa inaga maqan deganaan iyo waxa inaga maqan inaan jeclaano inaan dawlad la sameeyo Soomaaliya dawlad hadii laga sameeyo Djibouti waa u dan Ethiopia waa u dan Kenya waa u dan laakiin dad fara badan ma arkay inay dan tahay intaas baan kaga bixi lahaa waxaan nigu salaamayaa salaanta islaamka mar labaad السلام عليكم ورحمة الله وبركاته